nabada hada saaxiibayaal muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idin kula wadaago mid kamida duruustii iyo casharadii ugu muhiimsanaa uguna waaweynaa aan waalidkay ka bartay gaar ahaan hooyadii sideedaba waalidku waa barihii ugu horeeyay ee dunida markaanu nimeeyna afbaray maadaama afku yahay identity-geena iyo huwiyadeena iyo jiritaankeena waxa qeexa sidaas la ajligeed duruusta iyo casharada waalidku ina baraayay way ka qoto dheer yihiin oo way ka xeel dheer yihiin wayna ka qiimo badan yihiin duruusta iyo casharada iyo cilmiga aynu ka barano dhammaan nidaamyada waxbarasho sababtoo ah nidaamyada waxbarasho waxa aad ku dhiganaysaa waa instructions iyo tilmaamaad raacayso laakiin waa aragnimada waalidku kula wadaagayay waa intii cimrigiisa ahayd oo dhan tajribooyinkii iyo tijaabooyinkii uu sameeyay casharku hadaba muxuu yahay casharku waxa weeye meel ma wada galaan waxa la yiraahdo cuqdada calal ku haynta iyo horumarka iyo halabuurku si kala hadii aan u dhigo hadii aad han weyn tahay oo aad meel fog oo sare u socoto isku day inaad noqoto qof calool xaaran qof furfuran oo bashaasha oo aan cidnaba caloosha waxba ugu haynin sababtoo ah waxa jiri doona dad yow fara badan oo dhaliili doona shaqadaada iyo adigaba isku day doona inay hoos ku qabtaan oo ay ku xagxagtaan dadkaas wax alla wax xumaan oo caloosha ugu qabatay yaani jirin sababtoo ah xumaantaad caloosha ugu qabanayso iyo horumarka aad doonaysaa waa libbe isku yihiin oo isma qaadanayaan dadkaas iska cafi adiguna hawshaada iyo qorshayaashaada hirgasho oo mashaariicdaada ka shaqee maadaama aanay meel wada gelin cuqdada iyo halabuurkuna dooro halabuurka iyo horu socodka iskana ilow dadka kale inaad ku mashquusho oo aad xamato caloosha wax ugu hayso aad ka sheekayso sideedaba aqliga bini'aadamku waa saddex baa la yiraahdaa ka ugu hooseeya bini'aadamka iyo dadka uu ka warramaa ka dhaxina waxa uu ka warramaa ahdaafta umuuraha iyo dhacdooyinka halka ka ugu sareeya aqliga bini'aadamku uu ka sheekeeyo afkaarta mashaariicda arrimaha waaweyn ideaska iyo aragtiyaha ka damba noqo oo isku hawlin inaad dadka kale aad iska difaacdo oo aad iska celiso ku mashquul shaqooyinkaaga I love you so much thank you